halis amni uu wajahayo ra'iisul wasaaraha cusub ee maanta xilka la wareegay. Banjire Tarsan oo hadal ka dhan ah muwaadiniinta Soomaaliyeed loo haysto. iyo wasiir Beyle oo fadeexad culus wajahay iyadoo maanta ay su'aalo weydiiyeen xildhibaanada baarlamaanka. qodobadaas ayaan ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Bandhiga TV. fadlan sii share garee muuqaalkan sidoo kalena qaybta falowga ama subscribe-ka noo saar. waa bilaash waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dunida. ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo ra'iisul wasaaraha xilka wareejinaya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa ay maanta kormeer cusub ku tageen xarunta xukuumadda cusub ee ku shaqayn doonto hadda marayso heer gabagaba ah. kormeerkan ayaa waxa ku helinayay Rooble iyo Xamse taliyaha ciidamada booliska Hijaar xubno ka tirsan xukuumadda xilkeeda dhamaaday gudoomiyaha degmada Warta Nabadda iyo safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya. guddiga mashruucan dhismaha gacanta ku haya ayaa warbixin waxa ka dhigaystay ra'iisul wasaaraha cusub howsha iyo waxa ka dhiman iyadoo dhawaan ay sheegeen in xariga laga jari doono dhismaha oo si qurux badan loo diyaariyay. xukuumaddii ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa Xasan Cali Kheyre ayaa soo bilowday dhismaha xaruntii hore ee xisbiga oo ku dhow tuulada ciyaaraha isbartiibada Stadium Muqdisho. waxaa dadka qaar ay ka digayaan halista weeraro madaafiic ah oo shabaab ay ku qaadi karaan xarunta maadaama ay ka fog tahay goobaha dowladdu ay degan tahay. waa markii ugu horeysay oo sanado kadib xukuumadda iyo golaha wasiirada ay ku shaqayn doonaan meel ka baxsan madaxtooyada Soomaaliya iyadoo jidka Sodonka iyo qaybo ka mid ah wadnaha ay dowladdu ay ku shaqayn doonto una suuro geli doonto in hadda kadib ciidamada dowladda iyo madaxda halka lagu arko. taa ayaa la tilmaamayaa in hadda tahay khatar weyn oo hadda wajahayo ra'iisul wasaaraha maanta xilka la wareegay. safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Ambassador Maxamuud Tarsan ayaa waxa uu ka hadlay xaflad lagu taageerayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laguna soo dhaweynayay ra'iisul wasaare Xamse. khudbadda uu jeeday uu ku sheegay hadallo xasaasi ah. waxa uu yiri Soomaalidu ku nool dhulka xabashada Itoobiya ee Jigjiga wax dheer iyo dhagax buur xaq uma laha inay qaataan baasaboorka Soomaaliya. waxaan la weydiiyay inuu raali gelin ka bixiyo arrintaas uu sameeyay balse uu diiday Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. dhulka Soomaali galbeed maaha dhul xabashi waa dhul Soomaaliyeed oo ay ku nool yihiin dad Soomaali balse nidaamka Itoobiya oo meesha ka shaqeeyo. ugu dambeyntiina wasiirka maaliyadda ayaa xilligan wajahaya su'aalo adag oo kaga imaanaya xildhibaanada labada aqal ee fadhiga wadajirka ah ku yeeshay Villa Hargeysa maanta. meelaha sida gaarka wasiirka loogu haystay waxaa ka mid ah ansixin la'aanta miisaaniyadda 4 sano la soo dhaafay, lacag deen ah oo dhan 193 bilyan oo laga soo deensaday hay'adda IMF oo aan la soo marsin golaha sharci dejinta. gudoomiyaha aqalka sare ayaa dhankiisa sheegay in marnaba miisaaniyadda aan la keenin aqalka sare. gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa dhankeeda sheegtay miisaaniyadda aan laga ansixin golaha laga soo bilaabo sanadii 2010 ilaa 2021. wasiir Beyle 193 milyan oo deen dulsaar leh ayaa lagu haystaa oo aan baarlamaanka la keenin sanadihii 2020 ilaa 2021 iyo in aanu codsan xisaab xir 4 sano ee ugu dambeysay. Beyle wuxuu eedda ugu badan u jeedinayaa gudoonkii hore ee golaha shacabka oo ka qaban jiray xisaab xirka miisaaniyadda balse aanay baarlamaanku u soo gudbin jirin mursal iyo muudday hoosna ay ku wadan jireen howlahooda.